Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal soo dhawaada meel kastaa dunida ka joogtaan waa walaashin my gool channel aada iyo aad baa idiin salaamaya ramadaan kariim ramadaan mubaarak ilaahay nabad iyo caafimaad ha inuu gaarsiiyo ramadaanka insha allah maanta waxaan diyaariyey dhowr cabitaana oo aada iyo aada u nafaqo badan oo aada iyo aadna u fiican insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa inaad ka faa-iideysan doontaan biidnillaah dadka cusub iyo ummadda cusub waxaan leeyahay soo dhawaada fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe haddaa hornoor sii joogtay asxaabtaada la wadaag insha allah bal haddana aragna waxaan u baahanahay bismillaahi raxmaani raxiim waxaa marka la bilaabo bisinka ilaahay lagu bilaabo wanaagsan geedkan wadankeenu ugu yaala waa rumaan maasha allah aada iyo aada ayuu u manaafacaad badan geedka rumaanka keliyaha beerka qofka dhiig karka qabo oo kale noocaas ayuu u sameysan yahay qofka beerka ka jiran oo kale kaadi mareenka waxyaalo badan u fiican yahay maasha allah tabaaraka raxmaan geedkan af soomaali kuma aqaano haddaad taqaanaan iisoo sheega insha allah commentiga igu soo qora nooca uu ogyahay idin tusayaa insha allah sida yaanyada ayuu egyahay waa geed qaboow oo macaan aada iyo aadna benefitkiisu u badan yahay maasha allah anigu waan ka helay haddaad taqaanaan insha allah soomaaliya igu soo sheega geedkan waa af soomaali bartiikh af carabiga shamaam englishkan waxaa loo yaqaanaa sweet melon insha allah aada iyo aada u fiican yahay isagana wali afurku ku fiican yahay waa geed qabow noocaas ayuu u yaalaa mararka qaar korka wuxuu ka yahay kalar kale gudahana waa green insha allah carabta qaarna gantolob ayay yiraahdaan cantolob waana english aan jeclahay laba nooc uu kala yahay midna waa noocan midna guduhu greenka yahay insha allah cabitaankan dadka dietka ku jira ha isticmaalaan dhowr jeer hadda ka horna waa soo sheegay waa wada green waa tufaax green ah xabad tufaax oo green ah baby spinach iyo xabad liin dhanaan oo mid cagaarka ah insha allah miraha iska saar miraha ma wanaagsan caafimaadka uma fiicno miraha kana waa strawberry wuxuu qani ku yahay vitamin c-ga aada iyo aada ayuu u fiican yahay insha allahu tacaala iyo xabada mooska maalinkii qofka bini-aadanka waxaa u fiican inuu cuno xabad moos ama jab moos ah yoogadkaas yarna waa ku shiidanayaa insha allah kow marka hore waxaan ku bilaabayaa rumaanka yacni ha isaga darin waxyaalaha cadcad oo gudaha kaga jira hilibka waa kharaar haddii kaleeto wuxuu kaa noqonayaa kharaar aan caadi ahayn sokor yar sokorta brownka ku darso ama haddii kale qaado malab ku darso rumaanka gaaska uu fiican yahay dadka colonska qabo caloosha aaryada ka gashoo kale aada iyo aada uu ugu fiican yahay waana khafiif waa sida qaro oo kale maasha allah haddaa helays ka faa-iideyso marka rumaanka waxaa sameysaa markaa miraha ka saaray sidoo kale afar dhinac u kala goo kadib qaada intaa qaadid gadaal kasoo garaac dhag kasoo sii miraha bisaa kuusoo dhacaya insha allahu tacaala maasha allah tabaaraka raxmaan haddii arabto inaad ku qurxisato keegii oo kale sokor yar ku jajabi haddana koobkii ayaan inoogu shubayaa insha allah aad buu khafiif u yahay saa u aragtaan kuleel male inna yacni wax kuloo dhan kuma jiro waa qabow oo naacim ah cabitaanka labaad aan sameysanayno waa midka idin lahaa af soomaali haddaa ku taqaanaan igu soo sheegay igu soo faa-iideeyay insha allah waayo waxyaalo badanoo waxaa jirta aanan af soomaali ku aqoonin asaga biyo iyo malab yar ayaan ku shiidayaa asagana wax dhanaan malaha waa qabow ramadaanka yacni qofka maadaama maanta dhan sooman yahay wax dhanaan oo kale ma cabi karo oo wuu dhibayaa asagana waa qabow asaga iyo rumaanka iyo shamaamkaba waa qabow saa-id ah sweet melon waa englishka bartiikh waayaan u malayn af soomaaliga sidaas ayaan ku shiidayaa asagana maasha allah sida cambaha ayuu u kalar egyahay ama babaygoo kale isaga ayaan inoogu shubayaa insha allah maasha allah markaa shiidanaysoo kale haddaa dhul kulul joogtid ays yar ku darso haddaa dhul qabow joogtidna no need uma baahanid inaad qaboojisid maasha allah haddana waxaa inoo sameynayaa insha allah qeybtii saddexaad oo greenska ahayd baby spinachkii iyo liintii iyo tufaaxii biyo yar ayaan ku darayaa iyagana
sokorta badan iska ilaali insha allah. marka aad shiidid alaabtan iska miir, markaa iska miirtid qaado yaroo malab ku darso. maasha allah. waa kana asagana intaa inoogu shubaya. waan soo miiray qashinkii iyo wixii dhan waan ka soo miiray. kalar cajiib ayuu noo soo baxay maasha allah tabaaraka araxmaan. asxaabta iscaateynayso ka faa'iidaystaan liin dhanaanta, waxyaalaha dadku ku caatooyay ku jirtaa. tufaax oo kale, green apple-ka iyo baby spinach-ka. qaybtan kale aan hadda shiidayo waa qaybtii strawberry-ga ahayd. iyada waxaan shake ayaan ku darsanayaa. Herbalife shake ayaan ku darsanayaa 2 qaado ah. Herbalife shake waxyaalo badan ay ka caawin doontaa insha Allah taala. shamaam yar waan ku darayaa. aniga waxaan isticmaalayaa muddo. midaas hadda meesha geeska taalo waa protein. qofka yacni hadduu miisaankiisa yar yahay, tabar darro dareemayo, aad iyo aad bay ugu fiicanta. midda ka hooseysa oo yacni calaamadaha guduud kale oo dhaxasa usoo dhuuqsan oo kale, qofka yacni markuu jilco, hooyadoo kale markay dhasho ilmahoo kale way jilcaysaa, way u fiican tahay. middan sheegana fitamiinaad badan ayaa ka helaysaa. cabitaankaas aan ku darayo waa cabitaan mixed berries aan shiiday oo ii yaalay, ayaan biyo uga dhigayaa insha allah. marka alaabtan ka faa'iideyso. wadan laga helo haddaad joogtid insha allahu tacaala nala soo xiriir. aad iyo aad ayay u fiican tahay. markaad samaysanaysa pancake oo kale 2 qaado ayaa ku darsanaysaa iyo boorash iyo iyada iyo xabad moosa. cabitaankaa oo kale sidan ayaa ugu darsanaysaa. maasha allah tabaaraka araxmaan. inaba caadi ma aha. ani kulley faa'iido badan ayaan ka helay. marka insha allahu tacaala haddaad u baahan tahay nala soo xiriir. ramadaankana waxaa u baahan tahay cunto nafaqo leh oo tayo leh insha allah, oo quwad ku siisa, waayo maanta dhan ayaad soonayd. haddana waxaan ku darayaa 2 qaado yoogad ah. wax sokora kuma darin, waayo sheegii aan ku daray macaan uu ahaa. yoogadkana waa macaan. markaan yoogadka ku daro wax yar ayaan mashiinka ku celinayaa insha allah, siduu smooth zaaid igu noqdo. isaga wax miirtaan waxba uma baahno. sidan oo kale intaa u samaystid oo kale dhulka haddaad joogtid lunch box yar ku rido, qayb gasho, sida ice cream-ka u isticmaali kartaa. maasha allah. inaba caadi ma aha. isagana hadda koobka ayaa noogu soo shubayaa. alaabtan haddii cabtid tabar darro ma dareemaysid, culays badan ma laha. waayo qofku wuxuu u baahan yahay ramadaanka yacni waqti badan inuu taagnaado, ilaahay baryo. waa bisha kaliya oo na soo marta sanadka. ha laga faa'iidaysto insha allah. ilaahayna ha la isku xiro. astakfaartana aad iyo aad loo badiyo. cunto tayarana ha la cuno insha allah. maasha allah tabaaraka araxmaan. cabitaankeeni maanta 4 nooc ay noo sameeyey, sidaas ayay noogu soo baxeen. maasha allah maasha allah. intaan haysanin ilaahay siiye, intaan haysatana ilaahay u siyaadiy. annaga ku jirno walaalahay dhammaan waa idin salaamayaa meel kasta dunida ka joogtaan. waxaan idin leeyahay bashbash iyo nimco iigu waara insha allah. is aragti doonbo xiise leh. waa walaashin mayguul channel. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.